dambiga zinada la yiraahdo islaamka agtiisa waa laba qof dhagax lagu dilo iyo qof lagu dhiftahe 100 karbaash waxay ku doodaan waxay yiraahdaan qofkani dhagax ku dilid moogta waa ka daran tahay seefta Soomaa qofka seefta madaxa nad looga siiyo iyo qof halka noolo dhagax waliba lagu habib ma dhagaxaya dhagax kurtano gacantaada la eg baa nafta looga qaadaya dadka raba inay diinta wax ka sheegaan oo hadda adduunka soo baxay mulxidiinta ah waxay yiraahdaan qofkan ciqaabka noocaasa waxa uu sameeyay ka warrama biiray kii naf dilay ka laga siiyay oo naf bagooyay hal dilal yeesaf madaxa dhagka looga siiyo kan zinaystana waxa la dhagaxa lagu dilo halka kaliyo fiirinaya laakiin ma fiirinayo kasokow zinada iyo falxumada bulshada waxa ay u keento kasokow qofkan dhagaxa lagu dilayo processka la soo mariyay mataqaana waa zinaystay dhagaxa lagu dilo miya ma qofku waa inuu qirtaa zinada asaga aniga sameeyay waa inuu yiraahdo ama waa inuu la yimaado zinada meel 4 qof oo raga ay ka arki karaan inuu la yimaado ay ka arki karaan maxay tahay wiilkii oo wada joogeen miya ma waa qaawanaan ma isku maray ku dubnayaan ma waa dhididahayeen ma jiraas ma waa wax hadda aan afka sheegi karin ee caalamkan ugu talagalay in lagu hago inaan ku dhaqanno ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran mu'miniinay naftiina iyo ahlkiina ma naarka ilaaliya naartaasna ilaahay markuu tilmaamay wuxuu yiri waquduha an-nas wal hijara waxa lagu huriyaa naartaas dadka bani aadamka jirkiisa ay ku baxdaa iyo nooc gaar ah ilaahay ogyahay dhagaxyada kamida عليها ملائكة غلاظ شداد waxa ilaahay u qorsheeyay malaa'ig adag oo wax jixinjixaya naxariis midna aan lahayn la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'marun wixii ilaahay farayna way qaataan wixii ilaahay ka reebana uma dhaqaaqaan aan ogaana marka naarta noocaasa ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray looma abuurin ariga iyo geela iyo dhagaxda iyo dugaagga bani aadamka loogu talagalay bani aadamka loogu talagalay in lagu cadaabo qofkii laga waayo wadada saxda ah oo ilaahay soo qaad jannada qiimaha badan ee aad maqasheen ee nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu yiri qofka reera adduunyaa ee dadka adduunyada jooga qofka ugu ciqaabka iyo ciriiriga badan ah ee ugu dhibka iyo nolosha liita ee waligii ayna soo marin wax barwaaqo iyo maxaan ku raahay ee baraara ah jannada hadii hal mara sida inta loo galiyo laga soo qabto oo la yiraahdo waliga dhib ma ku soo maray wuxuu leeyahay waliga dhib maanan arag hadda ayar baa jannada la galiyo teedna waa laga soo bixi wuxuuna ahaan jiray bani aadamka qofka adduunka markuu joogay cudurka iyo gaajada iyo ciriiriga ugu badnaa muxuu la iloobay wuxuu dhibaato soo maray halka maree jannada la galiyo laga soo bixi jaani dhinaca kale naarta qofka maanta adduunyada ugu barwaaqada badan ee adduunka hadduu doonana istaajin kara hadduu doonana fariisin kara ee wax ka dhiman adduunyada ayna jirin haddii naarta ayar inta la galiyo laga soo bixiyo la yiraahdo waliga wax nicmo iyo barwaaqo ma ku soo mareen wuxuu leeyahay waligii wax barwaaqo ma ana arag muxuu la iloobay barwaaqada uu soo maray wuxuu la iloobay naarta xanuunkeeda kana dhibaatada adduunyada muxuu la iloobay jannada wanaageeda labada meelood annagana la kugu talagalay bani aadamka loogu talagalay ma aha dhagax iyo geeda iyo geel iyo ari iyo dugaag ma lagu aruurinayo dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay fariiqun fil jannati fariiqun fis sa'ir wax kale ma jiraan qof walbaana waxay ku xiran tahay wadada ilaahay soo asagu u qaado
qof jaahilnimo loogu cudur daarayana anugu u malayn maanta inuu jiro waxaas ma ogeyn qof dhahaya saas moodi mayn qof walba waa ogyahay waxa ilaahay ka xarimay iyo waxa ilaahay u xalaaleeyay oo waxyaabaha waaweynka ah guud ah waa dhici karta waxyaabaha hoose yar yar ah oo qofku una aqoon masaa'il qarqarsoona laakiin sida guud generalka guud waxa ilaahay ka xarimay wada ogta soodinta ilaahay ragga iyo dumarka u dhaxdhiga wada ogta xijaabka gaarka ah ee dumarka loo sameeyay iyo waanada gaarka ah iyo asturka gaarka iyo ilaahay uu faray wada ogta ragga sida gaarka ilaahay ula hadlay wada ogta adigoo inta og hadaa banaanka timaadid fiiri gaalada waxyaabaha ay ku doodaan waxa ka mid ah markay diinta durayaan dadka gala dambiga zinada la yiraahdo islaamka agtiisa waa laba qof dhagax lagu dilo iyo qof lagu dhifto 100 karbaash waxay ku doodaan waxay yiraahdaan qofkani dhagax ku dilid moogta waa ka daran tahay seefta Soomaa qofka seefta madaxa nad looga siiyo iyo qof halka nool oo dhagax waliba lagu habib ma dhagaxaya dhagax kurtano gacantaada la eg baa nafta looga qaadaya dadka raba inay diinta wax ka sheegaan hadda adduunka soo baxay mulxidiinta ah waxay yiraahdaan qofkani ciqaabka noocaasa waxa uu sameeyay ka warrama biiray kii naf dilay kow laga siiyay oo naf bagooyay hal dilal yeesaf madaxa dhagka looga siiyo kan zinaystana waxa la dhagaxa lagu dilo halka kaliyo fiirinaya laakiin ma fiirinayo kasokow zinada iyo falxumada bulshada waxa ay u keento kasokow qofkan dhagaxa lagu dilayo processka la soo mariyay mataqaana waa zinaystay dhagaxa lagu dilo miya may qof waa inuu qirtaa zinada asaga aniga sameeyay waa inuu yiraahdo ama waa inuu la yimaada zinada meel 4 qof oo raga ay ka arki karaan inuu la yimaado ay ka arki karaan maxay tahay wiilkii oo wada joogeen miya may waa qaawanaan may isku maray ku dubnayaan may waa dhididahayeen may ma jiraas may waa wax hadda aan afku sheegi karin waa wax aan afku sheegi karin qofka marka gaaray fiiri inta nabigu joogay kaleey salaatu wasalaam wax dhagax lagu dilay waa qof miya mise macnaha waxaan uga jeedaa diinta islaamku qofka marka la ciqaabayo ama la leeyahay qofkan waxun buu sameeyay aakhira laga diintu waxay samaysaa waxyaabo marka hore qofku inuu dambigan galo u diidaya si hadda maalan zinada iyo faaxishada si looga taxadaro xagga laga soo bilaabo u malaynaysa labada aayadood isku xigto suuratu nuur ku jidha ragana maxaa la yiri qul lil mu'minina maxaa u tiraahdaa baa la yiri yaquddu min absaari wa yahfazu furujahum indhahana ha laabeen farjigoodana ha ilaaliyeen gabdhahana maxaa la yiri waqul lil mu'minati yaqdudna min absaarihinna wa yahfazna furujahunna ayaga maxaa loogu daray intii ragga la yiri markii la yiri maxaa loogu daray wala yubdiina zinatahunna meelaha quruxdooda ah ragga qalbi qaadi karayna muujina ha qariyeen fiiri wala yubdiina zinatahunna quruxdooda ayna muujin waxa la yiri guriga hadaa soo galeysaan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum ma ku xiga hatta tasta'dinu wa tusallimu ala ahliha war gurigan ha soo galin illa dadka aad salaantid ee aad tiraahdo ma soo gala assalaamu alaykum ma soo gala balad saddex jeer hadii lagu ajiibay waa iska tageysa ma qalka inta reetiya jooga meesha ku jira ma dhahays fiiri iska dhaaf wax kale ilmahaaga yar yarka markay wax gartaan ba waxa la rabaa guriga adiga iyo hooyo aad joogtaan marka ay soo galayaan waqtiga waxa jira aan loo ogolayn inay soo galaan oo sharcigu diidayo ilmaha waxa la rabaa markay xoogaa noqdaan gogosha in loo kala fogeeyo oo la wada seexin macnaha waxaan uga jeedaa bulshada wax ka qarsoon ma jiraan qof ma cudurdaar laga aqbalayo maana ogeyn dambiga sida uu yahay gidhi wax la ma jiraan si guud ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka cabsano bulshada saanu karoonaha uga wacdinayno oo aan uga waaninayno khamrada
iyo waxaan wiilasha yaryarka iyo gabdhihii qarribay ee biibitooyinka iyo jiingadaha aan naqaano lagu gado oo bahalkan daanka la gashado muxuu ah taabuuga iyo khamrada iyo anshax darrada magaalada ka jidha anigu waxaan aaminsanahay iyo shiishada waxaan aaminsanahay coronavirus waa ka daran yahay coronavirus waa jiraa u dhimanaysa Soomaa hadaa u dhimato ma Ilaahay aakhira ku ciqaabaya Ilaahay ma wuxuu ku leeyahay coronavirus maxaa ugu dhimatay ma ku leeyahay la laakiin khamradan aad cabaysid bahalkan aad daanka gelinaysid Ilaahay aakhira waa kugu la xisaabtamaya coronavirus geeri dhaaf ma dhimanaysa bis daa u badatid ajashadana dhaaf ma soo gooya qofka hadii ajashiisa jooda xaq iyo xaqa midna ma ka aaday aan ka wacyi gelino bulshadeena akhlaaq darrada si gaar ah dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha dalka maanta waxa ka jira wadogti dadka diyaas barada leeyahay markay soo laabtaan waxa soo laabanaya wax jiraan la aqoon banaanka dhaqamada hadii rag joogan raaliga banaanka dhaqamada ka iman doona hadii qaran rasmi ah sal dhigto waxa iman doonta Soomaa wax leeyahay xorriyatul qowl Soomaa qofku wuxuu rabaa yiraahdo maxaa ku xigta qofku wuxuu rabaa ha sameeyo Soomaa ama dawlad laanta noo khayr badan tahay marka waa uleynayna hadda qofkii aan shaqadar la yimaado Soomaa laakiin dawladda ma uleyn karti markii dawladda taado farmasaari ka dhig ama diinta dawlad laanta mararka qaar u rontaa asilaad waxaan rabaa inaan warkayga ku fogaado ma rabo midan caafimaadka dadkii ahalka u ahaa ka warramay qofka ahalku amru ka warramo qof aan caafimaadka cudurkan waxa looga baahan yahay cudurkan waxa weey tilmaan waxyaabaha laga qaado in la sheego sida la soo ilaalin karo in la sheego wadaad waxa looga baahan yahay macallimiinta marka doctorada iyo dhaqaatiirta sheegeen astaamahan buu leeyahay saana lagu yaqaan qofka markuu hayo waxaana laga qaadaa saan baa laga qaadaa waxaana isaga ilaalin kara Ilaah baa ilaaliya laakiin asbaabta waxyaabaha noqdo waxa kamid ah saan inaad is ilaalisid waxa jira waa sharci qofku inuu waxaan kala ogaataa waxa kugu dhacaya Ilaahay kuma dulmin ogo wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ama corona kugu dhaco ama TB kugu dhacdo ama dagaal iyo rabsho kala dhibaato kala kugu timaado annaga aan waxaan shaqaysanay ba dhacay dambigeena mar waxaan la kaga dhigayaa dagaal mar waxaan la kaga dhigayaa abaar mar waxaan la kaga dhigayaa cudur kale aan la aqoon mar waxaan la kaga dhigayaa cadaawad iyo iskhilaaf bulshadii qofba qof uu ka cararo oo qofba qof uu la diriro wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum isdaaweynta iyo xilli laga hadlo lama joogo dadku qof walba og yahay waana isdaaweeyaa 24 saac corona cudurada la iska daaweynaya muxuu uga duwan yahay dawada la isticmaalaya maxay uga duwan tahay sharabada farmashiyaha ka soo qaadata waxay ka samaysan tahay mukawanaadkeeda miyaad garanaysaa waxay ka samaysan tahay maya maxaa soo qaadata kiniinigan paracetamolka aan isticmaalayno oo qandho jabiska sida caadiga loo isticmaalo muxuu ka samaysan yahay suur dhaqaatiirtu inay taqaano laakiin anaga isticmaalna miyaa naqaana maya maxaanu isticmaalaynaa dhaqaatiirta noo qortay Soomaa tan ayagii baa qoray Soomaa adoon aayad kale iyo xadiis kale raadin dhakhtarkii qandho jabiskan ku qoray ee ilmahan TB-da kaaga daaweeyay ee cadhada kaaga daaweeyay ee cudurrada kale ka asagii baa ku sheegaya cudurkaani sidaas weeye ka hortag buuna leeyahay xogaa dad baa yiraahdo ka hortaga ka waran ka hortag ma qadarta Ilaahay ma ka hortagayna waxa jiray Sayyidina Umar radiyallahu anhu xilligii islaamka uu maamulayay dalkii waxa la furtay Shaam la oran jiray waa dhulka Suuriya iyo Baytul Maqdis iyo Urdun iyo Lebanon iyo waxa xarun ahayd Baytul Maqdis marka uu soo kormeeriyay carada markii la qabsaday wuxuu rabay maamulka inuu soo nidaamiyo markuu meel dhex marayo soo dhow yahay waxa loo sheegay meesha inay ka dhacday daacun waxa leeyahay Shaam daacun baa ka dilaacay dadkii buu isugu yeeray ka warramay sidii loo wareegay waxa la helay xadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri inta xadiiska la helin Sayyidina Umar wuxuu go'aansaday inuu laabto ninkii Shaam madaxda ka ahaa wuxuu yiri ma qadarta Ilaahay ba ka cararaysaa afiraaran min qadarillah
ma waxa u laabanaysaa inaad qadarta ilaahay ka baxsatid cumarow sayidina cumar nin wuxuu ahaa khatar ah caalamka islaamka dadka maamulka markii la yihahdo waxaan hadda maamulka aad arkaysid inta u badan asaga laga soo minguuriyey hadday systemka ciidamada iyo registrationka ciidamada ay tahay hadday maaliyadda iyo bangiyada tahay hadday boostada iyo rasaa'isha iyo warqadaha la isku dira tahay hadday tahay waxaan roondada loo yaqaano kulli sayid cumar baa iskale ayar buusaa intuu u furiyo wuxuu yidhi low khayruka qaalahaa buy adiga qof aan ahayn hadduu warka ay dhihi lahaa wixii dhacda ogaan lahayd buy waa ninkii dee shaam maamulayo abu cubayda caamir ibnu jaraax low khayruka qaalahaa buy wuxuu yidhi nafiru min qadarillaahi ilaa qadarillaah qadarta allaan ka cararaynaa qadar allaanan u cararaynaa buy daacuunka yaa qadaray ilaahay jalla wacala soo maaha inaan laabanana ma qadar ilaahay la'aanteed baan ku laaban karnaa annaga inaan laabanana ilaahay baa qadaray nafiru min qadarillahi ilaa qadarillah saxaabadii buu isugu yeeray wuxuu yidhi yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wax xog ayaa ka haya saanoo kale hadday dhacdo nin baa yidhi anaa haya maxaad maqashay buu yidhi waxaan maqlay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya haddaad dhul ku maqashaan daacuun ka dhacay ha gelinina haddaa ku jidhaana ha ka bixinina saasaan maqlay buu khalaas go'aanka toos buu u qaatay muna gelin shaam buu ka laabtay madiino iskaga laabtay marka qadarta ilaahay adiga ma difaaci kartid laakiin diintanada iyo nolosheennu asbaab bay ku dhisantahay gaajada marka ku qabato maxaa samaysaa cunaad cuntaa gaajada soo qadar ilaahay maaha ma qadarta ilaahay ka hortagaysa adiga maxaa ka rabtaa ma iska daysid cunada haddaa cuntid inaad dhargaysa ma hubtaa may xaqa ma laakiin waxaan ogaanay caadatan waxaan ogaanay tijaabo badan iyo si guud iyo dhaqan walba waxa la ogaado qofku hadduu cuno inuu dhargaayaa la ogaado laakiin dharagtana ilaahay baa iskale gaajadana ilaahay baa iskale cudurkana ilaahay baa leh dawadana ilaahay baa iskale maxay dawadu ka samaysan tahay ashyaada wixii aadan waxba ku ogeyn adiga shareecada islaamku waxay tiraahdaa ashyaa'dan walxaha la isticmaalayo waxa u asala inay xalaal yihiin ilaa wax sharcigu ku yidhaha iska daa waxaas maahane ama waxa la hubsado inay nafta dhibayaan maahane maalan ilaahay kuguma keenee kaan karaa kugu dhacday lug bay kaaga dhacday maxaa samaynaysaa maxaa la sameeyaa waa la jaraa xaggee la jaraa inta jiranba meel caafimaada la jaraa waayo meesha caafimaadka waay loo xanuujinaya meesha caafimaadka meeshan caafimaadka maxaa loo xanuujinayaa si loo badbaadiyo ya inta kale haddii xataa lagu yidhaahdo waxaan lagugu durahayaa waa bakteeriyadii cudurkaani ka samaysnaa waa bakteeriyadii ma aniga laygu dilaya maya bakteeriyada jirkaagaa la fahamsiinayaa si ay cudurka u tiraahdo anaa meesha degana maxaa kasoo doonaysaa ma garanaysaa waxaas dhakhaatiirta laakiin iska loo ka sheekaynaysaa waxaas iyo intaa iyo inka badan oo aayada iyo axaadiisa oo isdaaweynta ka hadlaysa oo ka hortagga ka hadlaysa jidha marka ma rabo inaan warar ku dheeraado aad u mahadsantihiin sida bahalkaa looga hortagaya akhlaaq darrada magaalada ka jidhana ha laga hortago boorkan waxa ku qoran ayaa yaqaanaa inta luqadda ingiriiska qorta akhrisana soo ma inta kale maxay dhahayaan astaantii galmudug way u jeedaan yurubiyan astaanteedii waa u jeedaan hay-addan samafalka astaanteeda way u jeedaan waxaan maxaa wey annaga dastuurka soomaaliya ee qoratay maxaa ku qoran luqadda koobaad ya maxaa hadda luqadda koobaad noo annaga waa loo haysta dadkii shaqadan qabtaa loo haystaa sooma luqada labaad maxaa noo ah dastuurkeen ya aw fayn carabiga aw dowladda loo haysta laga bilaabo dowladda hoose lagu geeyo madaxa caafimaadka ee doctorka waa loo haysta aad u mahadsantahay wabillahi tawfiiq aad u mahadsan yahay sheekh Mahdi